isla laxabaadkan ay bilaawatay ciyaartii ahayd oo dhex maraysay Blue Star iyo kooxda marka koowaad bilaabtay ciyaartii dhex maraysay labadaas kooxood koobkii loogu magac daray ee baroodiisii Saad Cali Warsame dhammaantiin waxaan leenahay daawasho wacan wixii nataa'ijka insha Allah waxaan la soo socodsiin doonaa waqtiyada soo socda halkaan uu la taagan yahay wariyaha macruufka ah Somali Channel Cabdulaziz Kulmiye oo maanta ka soo qayb galay ciyaartii baroodiisii Saad Cali Cabdulaziz sida wararka qabanqaabada koobkan loo dhigay fanaanada qaranka Saad Cali marka hore waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan kaloo salaamayaa wadeenada iyo shaqaalaha telefishinka Anaakish oo uu agaasimo u yahay Xusni marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa dadaalka weyn aad u wajid ummadda Soomaaliyeed waxaana filayaa in aad xubin muhiim ka tahay xaafadda Anaakish waayo wax walba oo la sameeyo waxaa hormuud u ah iclaamka haddii uu iclaam jirin aragti ma jirto haddii ay aragti jirin aydaad ma jirto waxaan kaaga hambalyeynaya mar labaad dadaalka aad ummadda aad u weysid waxaana filayaa dadaalkaaga inaad sii laba doonto isla markaana uu noqon doono mid caalami ah waxaan u hambalyeynayaa dhammaan bahda Anaakish oo ku guuleystay run ahaantii in ay ka hormaraan xaafadaha jiddo Anaakish ayaa waxay noqotay xaafadda kaliya oo leh guddi aad iskugu xiran isla markaana leh warbaahin madax bannaan oo ku hadasha codkooda waxaana uga mahadcelinayaa iyo dadka kula shaqeeya markii ugu horeyso marka xigta arrinta koobka marxuumad Saad Cali Warsame waxa uu noqday goob taariikhi ah isla markaana run ahaantii aad loo soo agaasimay oo aan filayo in uu yahay mid taariikhda ka galay xubin muhiim ah waxaan leeyahay qabanqaabada guddiga Anaakish waxay noqotay mid aad u wanaagsan ka Somali Channel ahaan waxaana la guddoonsiiyey hadiyado telefishinka waxaa la guddoonsiiyey hadiyad aniga wariye ahaan waxaa la guddoonsiiyey hadiyad agaasimaha telefishinka waxaa la guddoonsiiyey hadiyad taasna waxaan ugu mahadcelinaynaa mar labaad xaafadda Anaakish maxaad soo jeedin laheeday guddiyada ka jiro xaafadaha kale sida ay u horumartay xaafadda Anaakish oo kale in markaas ay la qaataan la jaan qaataan hoosa socodka والله waxaan dhihi lahaa dhalinyarada aqoon-yahaniinta ah sida Xusni waxaan jeclaan lahaa in ay xaafadooda horumariyaan isla markaana dadaal weyn ay muujiyaan si xaafadda loo horumariyo waxaan ugu baaqayaa dhammaan iyada xaafadda in ay gacan la yeeshaan Xusni asiga ayaa gacan ka siin doono sidii ay u samaysan lahaayeen warbaahin maxalli ah isla markaana ku hadasho codka xaafadooda aad iyo aad u mahadsan tahay ninkaas wuxuu ahaa Cabdulaziz Kulmiye ayaan ku dhaafnay waan u mahadsan tahay aad iyo aad u mahadsan tahay codkaaga ka dhiibtay telefishinka halkaan oo ay ka socoto ciyaartii la baroodiis ee lagu talgalay fanaanada qaranka Saad Cali halkaan uu nala taagan yahay agaasimaha Somali Channel Engineer Abuyo adigoo hooshaada u sii jiro maanta maxaad fariin aad u diri laheeday ummadda Soomaaliyeed iyo tanjaaliyada بسم الله الرحمن الرحيم مركز هنا وحنا مدعلينا الله سبحانه وتعالى كتبنا تي في عليك شوانت في فتان المسلسية وإنا نبارك في حلقة تحسين وقدرنا ومد الله ونفرسته فناندى سادة علي والسماء وحنا الله سبحانه وتعالى وقبرينا إنه قطيع الواسع والقضاء جندي فردوسنا إنه كورابيو فانتنا أمان ومد الصوماليات ولبا يكونوا ليهين سيئة تحسين وقدرنا وحنا مركلة آد ومهد علينا تي في Anaakish isboortiga oo agaasimatay yahay mudane Xusni Orolojo iyo dhammaan guddiga Anaakish gaar ahaan guud ahaan isboortiga Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay qofkaas wuxuu ahaa injineer Abuyo oo codkiisa ka dhiibanaya aad iyo aad u mahadsan tahay gudoomiye Jubba oo ah qalantoorihii qaranka halkaan oo taagan Jeelani Barfanka asigana ah gudoomiyihii koobkii socday ee aqoon-yahanada hadda halkaan waxaa la taagan Samin Abdullahi Kaboy oo asigana ah gudoomiyaha bartamaha Jidda Cabdulaziz
أويس أمين سيدا ورقة مانتا كوب كان وقفتي حافظ عنيكيش أو لو تلقلي كوب كوب برديف أو لو تلقلي أنا نتفرنك سادي علي والله أوكي التلفزيون كعنيكيش هذا حقت عليه عن التلفزيون في هذا سبورتيغا ويا هاي بعض سبورتي والبلديار ويا هنا وقفت التلفزيون عرفت هذا كله والله عرفت عود منك السنة أول الله كسيو منك سبورت هو منك سبورتي أو كالمي هاي أو قوة هاي سومالي وقت مجعلة لا سومالي وحوم شيئنا أو سبورتي أو أهن خميل أهن وهدرني قانون الذين ما قدروا عم سلويها ولا كيغا من مساعد كيغا أضيق سبورتي أنا علي باشي أو أنا سيغا أنا علي باشي ما دام أول سبورتي أو كيميد من البير أو ربان أو شاقنا أيمن لك أو أما عليك سوغاب دلي أو مدينة ويا ما أنت أضيق سبورتي مركب بنكس أو شاقنا علي باشي ويا أضيق سبورتي كديلي إكيلي أو هذانو أخو أم علي أضيق سبورتي هذه هذا أمات سنتهاي عندنا هالكان وحان ورئيسة خادنينا قدومية على باشي وعها أصيغنا قدومية حانكا وعندنا كمدة قياشي شربت له أما علي مانتا كسو خيب قشي كوب كان أخبرور ديخة أهلا وطلق لي فنانا ديخارن كاس هذا علي محاد أكبر من لهذه رأيي هذا أما ركتب هذا خوان خابدا كوب كسيد الله خوان خابيه بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون marka hore qaran ah ayaan nala tagtay saada cali warsame ilaahay oo ka baryana qabrigeeda waasac u dhigo jannad firdawsina geliyo amiin midda labaad waxaan ku mahadcelinayaa xusni heer anaakish oo qabanqaabiyey inta qabanqaabisay koobkan loogu talagalay meeshii lagu dhigay iyo raggii ka dambeeyeyna waxaan leeyahay weligii sii wada barnaamijyadan oo kale isboortina waa barnaamij aad iyo aad u fiican aanan ka caajisanina inay muuse goobe xasan lafaro sportsa odayaasha canaagishna ku jiro oo aan leeyahay hore lagu sii wada wax khilaaf ah sportsa gurigiisa nadiifiyo ayuu guri kale markii anaakish ayna waxdi gacan waxdi noqoto in ay xaafadaha kalena gacan ugu yeero si ay midnimo weyn loo sameeyo isboortiga magaalada jidda la mideeyo waxdiga waxaan ku faa'iidaysanaya fursadda qaaliga ay siiseen ilaahay u naxariisto waxaa naga dhintay isboorti ah soo maray ingiriis ka dhintay waxaa kaloo sabtigii hore magaalada maka almukarama lagu dhintay daahir cusmaan faarax daahir gacmi oo ciyaartoydii hore ee soomaaliya casimaadkii ah aniga isku naadi musiiba u leeyahay aniga waxaan leeyahay waxaan leeyahay ilaahay subhanahu naga siiyo ما إنا قبل قادنا في الله يحمي سلام وكلام هذه بعض ما تنتهي مستر علي مجال علي أتكلم كبير تي في جالية الصومالية خاص عن إلا بهاي حافظ عنيكش عندنا وحنا نحن عيسى فليه قدومي موسى جود أسرع تعاونا عيارتي هالكاس كسرتي مدن موسى أركب هذا أما رأي هذا أدوسو جيرين لهذه جالية أما ضرر ديخة كوب كان الله قتل قلي فنانا دخرن كاساد علي بسم الله أول مرة عندي هنا نلاوي ندار ماموس يوم الخامس وحاله إلهي كسوكو دتي خبر خابي صد بردي مرحومة سادة علي فرسم طبعا كل أقدر أنت شيء يا الله إذا كوكان
lagu maamusaayey saada cali warsamo alxamdulilah loo naxariisto aniga waxaan leenahay eheladii iyo qaraawadii samar iyo maa heeda labaad waxaan ku darsanayaa walaalkeena macalinkeena oo meel soo wada dheelnay isku xaafad soo wada dheelnay daahir gacmay macalin oo ka ahaa ingiriiska maka oo imaaday markii qarankaan qabaqaabana agteena u joogay waxaan leenahay iyo macalin soo maray asigana waayo arag ah oo ku dhintay ingiriiska labadoodba walaalkayga cali suu hore u sheegay oona isku kooxa ahaan jireen cali baashi waxaan leenahay samir iyo iimaan allah naga siiyo eheladii uu geeriyooday adina waxaan ku leenahay samir iyo iimaan allah naga siiyo saaxibkaagu ahaa garabkaagu ahaa gacalkaagu ahaa marka samir iyo iimaan allah naga siiyo waxaan leenahay intii soo qabaqaabisanay ajri xasanaad allah ka siiyo waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsan saaxiibkaasna wuxuu ahaa muuse goobe khayr ayaan rajaynaya bismillaahi raxmaani raxiim halkan uu nala taagan yahay guddiyaasha ama odayaasha xaafadda anikish ismaaciil bakshaan oo asagana codkiisa ka dhiibanayo koobkii baroordiiqa loogu talgalay fanaanada qaranka saadi cali warsame sida u aragtaa guddoomiye ismaaciil qabanqaadada koobka loogu talgalay fanaanada qaranka بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله كروبكا سيدا لوgu talagalay waa si aad iyo aad فرح سناي horta ummadda Allah yarxamo يعني جنة الله dilkeeda يعني aad iyo aad Soomaalidana arka gaxday ina maantana يعني كل نفس ذائقة الموت waliba waa dhimanaa ilaahay aan naxariisto marka taaniyan waxa waa anaga koobkan waxaan ugu talagalnay يعني marxuumada saada marka يعني inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun taaniyan koobka waxa noogu dhamaaday si habsami leh oo fiican oo haddiila leh leena waxaan ugu talagalnay leena koobkii ugu horeeyna ma aha koob aan sameynay oo intii naga dhimatay oo ku xusnay badan baa jira marka taas waxaa ujeedadeeda aan leenahay yani sababtoo ah leena annaga markaa Sacuudi Arabiya aan ku noolnahay shabaabtiina maasha Allah tabaaraka leena maanta in la xasasiyo dareenkooda inay leeyihiin wadan la yiraahdo Soomaali inay leeyihiin in la dareensiiyo baaniyana ciyaaraha isdhexgalka bulshada leena taas oo aham weyn aan u leenahay in Soomaalidii qabiilka ku dhaqmay inaan ka baabi'ino ay iswalaalsadaan oo yani kii oo waqooyi joogay iyo kii oo koonfur joogaba hal inay noo ahaadaan ayaan ugu talagalnay barnaamijkan oo jidda oo goobta taaniyan waxaan mahad gooni ayaan u soo jeedinayaa in telefisyoonka Somali Journal oo leena kaalin weyn ka qaadato sembara yani oo isku keento ciyaalka oo ciyaarsiiso ayagoon maanta cidna mushaarad ku siinin oo yani iska wax u qabso ku shaqeeyaan annagana waxaan garab taagannahay inaan waxay ayaga qabtaan annagana inaan la qabano maadaama annaga aan joogno wadankan Sacuudi Arabiya oo qurbayska ah leena maanta yani wadankaaga ahaan dareenku joog waaye marka taas waxaan ula dan leenahay in shabaabta soo koraysa inaan ku madadaalino haddaanba fursadaas oo wadankan aan joogno ayna siiyaan leena annaga waxaa ula jeedadeena dhalinyaradeenna inaan ciyaarahii tusno berita nin waliba wadan buu leeyahay ciyaalkan dhan waxay isugu imaan karaan berita wadankooda leena in la xasisiyo in berito laacibiin oo muhiim ah oo wadanka wax qaban karo beri oo ka ciyaari karo wadamada barnaamijka inaan ka dhex helno yani taasa leena wala jeedadeena ah taasina waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi aad iyo aad mahadsan tahay haddana halkan waxaa fadhiya guddiyaashii oo maanta daawanaya rigooradii halkan ka socoto sida uu joogo ciyaartooydii marka oo u dheeli jiray markaas kooxda SYL iyo kooxda la dhaho Cameroon oo ku
magac dheer khaasay asagana maanta barkiin ku jiray ciyaartii halkan ka socotay ee koobkii baroordiiqa loogu talgalay fanaanada qaranka maxaa ka dhiiban laheeday maadaama aad tahay ciyaartoydii hore aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama aniga hadda aan coach aan fadhiyo xoogaa waa soo taakhiiray meel waxaan kusoo taakhiiray oo shaqa kusoo taakhiiray aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maadaama weliba aan khadka ciyaarahan ku dhex jiray weli laacib oo yani oo qadiima ahay laakiin insha allah waxaan u baahanahay isla ciyaar maxaad fariin u diri laheeday ciyaartoyda reer marka cadeey sida tinjire iyo odayaashii hore meesha ka nool sida xaseey iyo dadkaas maxaa u diri laheeday dadka ciyaari jirteen aad iyo aad ayaan u salaamaya laacibiinta aan la ciyaari jiray sida xasan xaaji weeya yoonisow maxamed cumar يعني عباس خلوع يعني تنجرة يعني توبرة يعني يوسف عمر ورسمة بيكلو يعني عيارتو بدن آدي أنا العيار جرا عيارتو بس آدي يا سلامة يعني وحنجعلها يعني قريب الناس عارف وحنجعلها آدي هذا وما تصنتهاي آدي هذا وما تصنتهاي خاصي هل كانوا عندنا ورئيسي عن كسابينو بديجا أما كلاته بدوني كوبي سعودي أخواننا بسومالية بدوني جيلاني برفان maxaa ka dhiiban laheeday maadaama ay soo dhamaatay ciyaartii oo hadda guusha ay qaaday kooxdii oo rigoorada ku soo guuleystay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورنتي أدي أدب معندين رنتي كان وحلا بداية إن شاء الله maxaad u jeedin laheeday maanta koobkaa ku guuleysatay koobkii baroordiiqa ah والله رنتي كوبا ما صار وفري ستار مدام ما شاء الله aad aad u mahadsantahay halkaan waxaan ula taagan alantoori ama kaleta arbitari qaranka soomaaliyeed Mr. George maxaa ka dhiiban laheeday asigoo hadda duubitaankan ama channelkan ay leedahay jaaliyadda jidda xaafadda anigs laga leeyahay agaasimadeedna uu yahay xusni oroloojo maxaad u diri laheeday ciyaartoyda tan dalka iyo tan dibadda dadka jooga maadaama ay yihiin mustaqbalkii berito waxaa lagu baahanyahay waxaa lagu baahanyahay jinaal wanaagsan inay ciyaara markasta sportiga waana baahida sportiga jiddaada waxaad u diri laheeday ciyaartoyda maanta ka dhisan khaasatan degmada aad ka soo baxday marka cadeey maxaad u aad salaan u diri laheeday ciyaartoydii halkaas ku sugneeday aad waxaan horta halkan ka salaamayaa ciyaartoyda degmada marka cadeey oo ayaa wanaag oo maanta ciyaar wanaag aad u wanaagsan labada dhinacba ciyaarta aad u fiican oo heerkeeda aad u sareysa oo ciyaar degan oo nadiif ah ayaa la ciyaaray galabta waxaana leeyahay wanaagsan ciyaar fiican insha Allah aad iyo aad u mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa ama kaleete arbitaraha George aad u mahadsan tahay haddana halkaan waxaan isu guda gelaynaa koobkii oo hadda kooxda waaberi waayo gudoomiye maxamed danab She's
ليس أمير ماجد لك أسود على halkaas ay ku qaaday guushii kooxda waa beri oo koobkii ku qaadatay